wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi oo maalmihii u dambeeyay socdaal ku maray gobolada bariga Soomaaliland haddaba maruu wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland uu soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa warbaahintii wax ka weydiisay socdaalkan uu ku maray gobolada bariga Soomaaliland waxaana wasiirku faahfaahin dheeraad ka bixiyay ujeedka safarkiisani waxaan ka imid Laascaanood oo aan joogay 5 casho halka oo aan u tagay safar kaas oo ujeedadiisu ahayd xaaladda nabadgelyada arrimaha dhulka degmada Laascaanood iyo guud ahaan gobolka Sool marka halka waxaan kula kulannay guddiga nabadgelyada gobolka golaha deegaanka dadweyne aad u kala farbadan oo kala duwan uqaasha odayada waxgaradka halkaas aanu kala hadlaynay arrimaha dhulka dawladda dhulka guud ahaan hantida dawladda taas oo aanu dadkaas deegaanka degan ay si fiican ka yeeleen oo aan wax alaala waxaan si soo qaadnay isla afgarannay sidaad ka warhaysaan waxaa aad u badan waqtigan dambe dhulkii oo noqday baayac mushtar oo noqday il dhaqaale maanta waxaa ku dhow dhulku inuu noqdo wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa ka hadlay eedeymo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Laascaanood shalayto iga daba soo baxay oo war in ka mid ah golaha deegaanka ee Laascaanood aan u dhamayn telefishinada ka hadleen oo yiraahdeen gobol iskii keligii gooni loo gooyo oo dhul baa laga xanibay 6 bilood ayaan dhulka Laascaanood bixintiisa iyo qaybintiisa iyo qorsheyntiisa ba joojinay waxay nimanka dhowrkaanin golaha deegaanka ay dadweynaha ugu dhigeen qaab kale oo qaabkii wareegtadii aan soo saaray aan ahayn oo ah in dhul aan la isku haysan oo magaalada dhexdeeda aan joojinay maana joojin dhul magaalada dhexdeeda ah iyo agagaarka koonaheedaba ah oo dhul la isku haysto iyo dhul sharci darro ah aan ahayn dhul sax ah oo cidii lahayd u madax banaan ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliland Cabdirashiid Ducaale Qambi ayaa kormeer ku tagay naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan waxaanu warbixino kala duwan ka dhageystay gudoomiyaha naadigaas Axmed Cabdiraxmaan Saalax iyo sidoo kale qaar ka mid ah naadigaasi magaceedu waxa la yiraahdaa naadiga akhriska iyo qoraalka ee Halkaraan waxa lagu magac daray buugii Abwaan Hadraawi 2009 magaalada Burco laga aasaasay maanta lagu jiro runtii sanadkii 18aad 2018 wali xarunta Halkaraan way shaqeysaa muddo 10 sano ay naadiga Halkaraan ku soo shaqeynayay si volunteer ah si iska wax u qabso ah dhalinyarada gobolka Togdheerna runtii oo marxalado kala duwan runtii iyo naadigu marba ay soo mariyeen maktabada imaado dhalinyarada dhiirigeliyo oo buugaagta la akhristo oo bulshadiisa inuu ku dhex jiro oo aqoonta uu dhiirigelinayo oo muujiyo uu naga aqbalay qolkan yar aad maanta dhex fadhida ka jira kuwa Hargeysa iyo Berbere laga dhisay iyo dabaqyada ay Hargeysa iyo Berbere leeyihiin kuwaas kuwa la mid ah baan doonaynaa wasiir inaad nagala shaqeyso oo nala loobin gareyso waxaan doonaynaa ilaa iyo madaxweynaha inaad noola socoto anagoo adeegsanayna maayirka magaalada Burco iyo bada saabka Togdheer oo iyagu doonaya laftarkooda inay dhalinyarta gobolka Togdheer helaan goob magaalada bartankeeda ku taalo oo ay dhalinyartu wax ku akhriso ku kala faa'iideystaan lagu dhiirigeliyo wax akhrisun baa keena wax walba اختراعياشن dunida wax ka jira waxay akhriyeen iyo waxay dirseen oo baareen oo ay qoreen qoraalka nafteeda ku dareen baa wax laga faa'iideystaa insha Allah biidbillahi kariim si ay soo gaadhaba way soo gaadhay in library weyn magaalada laga sameeyo halkan warkeeda ama hal isbays oo la tiraahdo inta ka faafin karo iyo wixii aan ka geysan karaba Shaakir Cabdi Axmed telefishinka caalamiga RTN Burco.